بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. إلهي waxaan ka baryayaa inay nabad qab idinku soo gaadho qof kastoo dhageysta cajaladaasi. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in intii wax kala faa'iideysatay fi aakhirada inaga dhigo ma sha Allah. Maanta waxaan ka hadlaynaa walaalayaalow sonkorta oo taas ah sonkorta iyo malabka keeba faa'iido badan malabyo badan baa aniga aqalkayga yaala manuka yaala Himalaya yaala noocyo badan baa yaala vifeniskana isticmaalaa waxaasina waa intaan sonkorta joojiyay ayaa igu soo urureen markaan dib anigu u sameeyay research ayaa waxaan arkay inaan qalad jafayo waxaan sir walaalahaaga kalena wax uga faa'iidey ma sha Allah waayo waxaan ogaaday sonkorta iyo malabku in aanay isku mid u yihiin oo aanay wax xagga sonkor ahaan in aanay wax ku kala duwan yihiin jirin maybe xagga faa'iidada inay in yar isdhaamaan laakiin sugarka ku jira malabka iyo sugarka kaynka isbaylan dhir buu ka baxaa kana biida samaysa in ay isku mid yihiin baa soo ogaaday oo uu ka badan yahay waliba researchyo badan oo meelo badan oo important lagu sameeyay sida journal nutrition oo kale ayaan aad u eegay marka waxaan ogaaday in sugarka nectar biga ay kaba maqan tahay horta iyada kan iska ilow kan yaree suuqa lagu iibiyo dukaanadu hayaan iska ilow kani dadka baa uu ka sonkorsan yahay waliba khatarteedu leeyahay uu ka sonkorsan yahay waliba sonkorta malqaacada malabka iyo malqaacada sonkorta ah midna waxa ku jirta 65 sugar ah midna 61 imagine glucose ahaan waxa ku jirta mid sugar ka 48 ku jirta 48 ka kalena 64 malabka marka khatarteedu leeyahay the more sugar fructose ka waa caynka midna 35 baa ku jirta midna 40 marka waxay anigu isdheer yihiin oo kale maba arko corn syrupka iyo sugarka iyo haniga iyo la wada xataa ay wada dad wada siiyeen oo ay dad research ku sameeyeen oo ay siiyeen waxa la sheegay intuba in ay same amount high glucose taada cirka marinayaan oo ay kor u qaadayaan oo raise gareynayaan blood sugarkaaga immediately oo insulinta jirkaaga ku jirta ay markiiba levelka ugu sareeyo gaadhiso oo aanay wax u dhaxeeya corn syrupta iyo sugarka saddexdaas la wada tijaabiyay iyo haniga saddexdooda waa corn syrup iyo sugar iyo honey marka aniga markii aan sonkorta ka yar leexday waxaan isiri malabkan waliba kan dukaanada laga soo iibiyo aad baan wax ugu darsadaa halka hadaan hal malqaacada kuma dare laba malqaacadood baan ku daraa cuntada waayo waxaan isleeyahay waa honey oo waxba kuma yeelayo laakiin inta ay dhibaato sonkorta i gaarsiinaysa in leegu dadka gaarsiinaya marka walaalahayga islaamka ah ee cajaladaasi markay soo gaadho hala taxadiro wixii la cunaya wax yan oo waxba ahayn halaga soo qaato in yar oo dhibic ah hadaad xataa wax cun istirahdid malqaacada caaradeeda manuka hanigan oo ugu fiican oo ay waliba qaali la siiyo oo wadamadan yaalo Australia New Zealand buu ka baxaa la yiraahdo soor taroodka iyo waxyaabo ka dadawo yahay iyo eximada iyo waxyaabo uu ka dadawo yahay laakiin sugar buu leeyahay malabku yaan la dhayalsanin aniga halka aan ka research gareeyay gala hadaa doonisaan oo beentay moodisaan iska ilaaliya inta ay sonkortu malqaacad sonkor inta ku jirta hanigaana ku jirta marka qof oo hays oranin biyuur hani roo haniga ugu fiican roo haniga lama bahelo waa qaali laakiin waxa lagaaga ogol yahay malqaacada yar caaradeeda hore inaad ka dhadhamiso simple waxa dawo ka dayeyso weeyaan laakiin cunto ahaan inaan cunno saanimka aniguba dadka Soomaalida ku arkay mala waxba la sameeyay waa laga buuxinaya waxba la sameeyay waa laga buuxinaya waxaan isleenahay waa hani marka hala iska ilaaliyo meelaha aan galay dadku ha galaan haday aniga rumaysanayn sonkortani waa sonkor malabku waa sonkor malqaacada sonkorta inta ku jirta iyo malqaacada malabka inta ku jirta waa isku mid waa la idin sheegay imkaba ama ay dhageysan wabillahi tawfiiq kuwii wax kala qaata Allah inaga dhigo malabka la moodayo inuu sonkorta ka fiican yahay khatarteedu isna leeyahay
wax walba hala yaraysto saad sonkorta iskaga yaraysa kana iskaga yaree wabilaahi towfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu